gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Ali ayaa waxa uu ka warbixiyay isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaamay dad ka soo jeeda koonfur galbeed lagu xirxirtay gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isla markaana lagu afduubay. Faisal Sheikh Ali ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi loo haysto mag ay ka soo wareegatay muddo 19 sano ah. sidoo kalena waxyaabaha lagu baahiyay baraha bulshada ay yihiin waxba kama jiraan waxana uu tilmaamay in dadkaasi ay bixin waayeen mag sidoo kalena iyagu ay isxirxireen ayaga raali ka ah in la xiro waa ku soo wadeeshiyeen qabiilku wax yiraahdeen si kale wax ku imaan mayaan hana la xiro reer Baydhabo haduu yahay iyo reer Kismaayo haduu yahay iyo reer Xamar haduu yahay iyo reer Jowhar haduu yahay anaga ay soo kaayimid haduu uu nala joogo waa dooranaa inuu xukuumana waa ogol قانونك دلك إنه قيب كنا قدنا وأقوله لكن دد قروي اللي حرتي معهن دد قوائل اللي هيستان معهن دد حول جو أبتزوي معهن دد لجوتش شوي معهن دد قانونك الله مريوي السوشيال ميديا ما أنت هيستي بيدبر لمرة بيدبر ده هاللي وحنا رأينا كهذا دد كنا كشايل بحيو لما يو سجال 8 سنة كهر بينين دلين سجال 8 كسنة وحنا لقى سوسيال لا يعني نينك مكتيس maalin ayaan dhawaa 7 bilood ka soo wareegtay ayaga baayaga nin laga dilay ninkii laga dilay waa loo soo qabtay waa loo keenay qisaasta la yiri fiiri gobonimada Gaalkacyo taala idin sheegaya nimanka reer Baydhabo ninkii baa loo keenay ninka dilay waxa la yiri waa loo yeeray aabihiisa yimid qisaasta la yiri qisaas ma rabeed waxa rabaa yiri diyo aan ku bedeshay diyadii waa loo aruuriyay waa diyaar anaga maamulka ninkii baan soo qabanay waa keenay odaygii baan u yeeray waxaan irdiyo haduu rabo diyadiisi muddo qabsada muddadii ay qabsadeen baa diyadii loogu ururiyay 19 sano ayagu ninkay dileen maamulkooda ma soo qaban oo nimo horkeenin oo kala qisaasta ma oranin oo maqti ma ay bixinin oo ma soo ururin oo 19 sano waa 19 ilaahay baan kugu dhaarshay wax gar aha ninkay intay direen bay waxa u direen Yaman bay u direen marka nimankii reerkooda halkan joogay iyo nimankii makta ku lahaa 19 sano بانتي وده هاللين بوحدين مكتئب النسية. dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay nawaaxiga isgoyska Afrida Jirdiino ee magaalada Muqdisho. shilkan gaari ayaa waxa uu dhacay kadib markii gaari xamuul ah nooca BG-ga ah uu ku dhacay mooto bajaaj isla markaana halkaasi khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen. kamid ah dadkii ka agdhawaa goobta shilku ka dhacay ayaa ka warbixiyay. mootadii iyo dadku ku jira meeshaas oo dalcadaas oo cadadaas bir aan ugu fujinna aqaawi marka gurmad Soomaali asku timid Soomaaliya gurmad raashinkan dad shacab ah